wadada Jubbada Sare waxa ay kala qaybisaa degmooyinka Boondheer iyo Shibis si kale waa wadada isku xirtay isgoosiyada Jubba iyo afarta darjiine ee magaalada Muqdisho muddo 30 sano ah ma ayan helin wax dhismo ah ama dayactir lagu sameeyo waxaana maanta dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna maayarka caasimadda mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxaana dhinaciisa taagnaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Cumar Cali Cabdi iyo gudoomiyaasha degmooyinka Boondheer iyo Shibis labada gudoomiye ee Shibis iyo Boondheer ayaa ballan qaaday inay ilaashan doonaan badqabka wadadan haddii dhismaha lagu dhameeyo salaan kadib maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed maanta waxa laga dhagax dhigayaa dhismaha wadada ka soo bilaabata isgoyska Jubba ee marta tagtay isgoyska afarta jardiino waxaan xusuustaa maalintii aan xafiiska la wareegayay 2 bil ka hor gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho madax Cumar Filish inuu ballan qaaday inuu wadadan dhisayo reer Shibis iyo Boondheer waa farxad in ballan qaadka duqa magaalada la fuliyo gudoomiye ka maamul ahaan degmada Shibis waxaan ballan qaadi doonaa haddii eeba idmo markii wadadan la dhiso la dayactiro in nadaafadeeda iyo bilicdeeda aan ku dadaalno haddii eeba idmo gudoomiye aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaynaa adiga iyo tiimkaaga in wadooyinkii magaalada Muqdisho ay xawli u dhismayaan mid la dhisay bishii dhaweyd tii kale hadda ay maxay ahayd saacad maantay aad maxay tan noo dhagax dhigtay magaaladan aan ogahay in dhismo fiican oo ka socdo dardaarankaagana waan fulinaynaa diyaarana u nahay inaan dardaarankaaga wixii karaankeenna aan kari karna aan fulino gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Cumar Cali Cabdi waxa uu tilmaamay in mas'uuliyiinta labada degmo iyo shirkadda dhisaysa la xisaabtami doono dhismaha wadadan haddii la dhameeyo iyo inta uu socdaba waxaa jiri doono isla xisaabtan waa sida saxda ah laamiga la dhisaa laamiga intaan furna kama tagi doono injineerada daba socod doona insha Allah siwajkooda ana maaragtay la xaqiijin doona ama drainage-kooda laamigan hadda la dhisaayo wuxuu aad u anfici doonaa degmada Boondheer sababtoo ah degmada Boondheer biyaha gala oo dhan waxay ka galaan jidkan oo 3 jid ku furan waxaan ku dadaalaynaa insha Allah biyaha in 3daas jid aysan ka gelin maadaama xaafadu ay hooseyso biyaha waxaan soo raacsi doonaa jidkan diritada ah meelo uu ka buuran yahay way jiri doontaa laakiin halka ugu dhowna waa gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo laamigo burbursan aan nagala fool xumaaday in aan ka joogno dhismaha waxaan xog saari doonaa insha Allah inaan dhismaha wadno sidoo kale isla xisaabtanku wuxuu ka imaan doonaa qashinka marka ugu horeeyo awal wuxuu ka imaan jiray dhismaha laamiga waa la fiiqaa laamiga carada laamiga saaran labada dhinac oo mashabiyeerka la dhigaa labada dhinac oo mashabiyeerka markii la dhigo laamigiyo nadiifa iyo mashabiyeerkiyo carayaala laga tagi jiray laakiin markaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo tiimkiisu aan ka mid ahayba waxay go'aansadeen laamiga oo nadiif ah iyo mashabiyeerka oo nadiif ah oo wax carraa aanan oolin labada degmo inaan ku wareeji doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan kula xisaabtami doonaa marka labada degmo waxaan kula xisaabtami doonaa laamiyada aan ku wareejin haddii Ilaahay raali ka noqdo ugu dambeynna gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu tilmaamay in maamulkiisa uu qorshaha koowaad iyo kan xigaba uu ka dhigay dhismaha wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho taas bedelkeedana loo baahan yahay in dadweynaha ay ilaashadaan hantida badan ee magaalada madaxdooda loo galiyay waxa jira waajibaad laga rabo bulshada oo bulshada saaran iyo waajibaad saaran maamulka gobolka Banaadir saaran kan degmada saaran dawladda federaalka waxaa la doonayaa danta guud in la isu kaashado oo qayb walba oo bulshada ka mid ah ay qaybka uga aadan ay ka qaadato markaasaan gaari karnaa meesha aan hiigsanayno maamulka waxaa laga rabaa sidaan oo kale ama dawladda federaalka ha kaashado ama cid kale ha kaashadee ama iskii ha isugu tashadee waddooyinka magaalada Muqdisho inuu dhiso mas'uuliyaddaasaan qaadannay waa annaga qayb badanna qabannay qayb badanna hadda wadna waxaan codsanayaa waa ku mahadsantihiin sacabkeenna iyo taageeradiinna laakiin warka inaad dhegaysataan waddada waa dhisaynaa
mid kaloo dhiman hadday jirtana waa dhisaynaa magaaladoo dhanna dhismaheeda waa dhammaystiraynaa waddooyinkeeda insha allahu tacaala taasi waa mas'uuliyadda annagu aan qaadnay bulshada waxaa laga rabaa ayagoo maamulka degmadu oo hor kacaayo meesho la dhisay ee biyo fadhiyaan ee qashin lagu soo qubay ee na niyad jebinaysa inaan la arag ibraahim xaaji yuusuf warbaahinta gobolka banaadir magaalada muqdisho.